بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال إن خدك دلك يسوتجا إمارات عربتها مقالة دبي وحاكسوجن بقر عثمان ومحمود محمد إن وذكرنا إنسان بقركو دلك سو بريهن دجنا إن مدنا دلك وكما قي هاي إن بقر إن مركه هراكوسو دو سهنتي في جمعة وناكسن بقر أنا جو واحد بدن سؤال كلا دوان كاوي دين تونا بالعرمها تشيرة حالة تشيرته بريهن واحد شيرة أو أي دتكو كهاد ليان إن حسبي كل مية حديثي يأرهم بدن أي شيران واحد كلا أو شيرة إن قلوين كي حسبي كل مية مركي هربا إن أود بدنا أمام حيدا يقولون كوينا وحسوك يستي إن أي محاي هيدا خلاف كلا نحتاجيه هدي عن صوت قابيو خلاف كباش أتكسو شيء هبرت شعله يمد حوينها يدولة دي سحيل اللي كان نحتاجني حقوق سليسي محاسك يعني محاس اللو دوين ولاعي هاي إلى مركي هربا محايدي اسكو حلافة هاي داري. بسم الله الرحمن الرحيم. خرط مركي هوري waxaan jeclahay maanta hadalkaygani ma noqon doono mucaaradad aan hadii aan la leeyahay sidii la iga baran jiray aan xukuumadda iyo aan hadallada adag oran jiray maanta arkigu ma noqon doono wuxuu noqon doonaa waxaan is leeyahay arrimaha in ay yara taabto meelaha sartu ka qontay iyo wixii hadii aan la leeyahay maanta dalku inaanu xamil karin mucaaradad fara badan iyo dhibaato fara badan iyo hadii aan la leeyahay burburna aanu ma baahnayn inuu dalku galo taas arrinka wuxuu weydiiso waxa weeyaan runtii arrinka hadii aad wax weydiisay hawshu markii hore way jirtaa qaabka Soomaaliland ay wuxuu wadeeyay haayeen qaab shacbiga loo abaabulo inay beeruhu taageeraan xisbiyo ay dimuqraadiyadii qaab dimuqraadiyada aynu xudhignay marka maadaama ay sidaas jirtay aanan hadalka beenayn waxa la oran karaa maxaa keenay arrinka kan horta habar jecel ugu weynayd dawladda maxaa ahayd xisbiga dhisatay ma wixii ay bay ka hari kari waayeen inay si fiican u baliyayaan oo hanigaan mise wax kala soo baxay hortaan wax doonaya halka dhacdo madaxweynaha kursiga ugu mudnaaba ku dhisnay waanu ku ambaliyeynay inaanu beero ku taageerno ma diidanin marka horena waxaan doonayaa arka sida loo dhigayo inaanu wax ka duwan yahay oo marba waxaan ambaliyeynayaa beelihii subeer awal ee heshiiska balaasa burca ku wada gaadhnay runtii waxaan leeyahay hadalka haddii runta laga sheegin wax ka xun baa laga sheegaa waana hambaliyeynayaa beeshaas heshiis fiican baana dhex maray oo siyaasadeed manu ahayn qaabka siyaasiyiintu wax alla waxay wada galeen siyaasiyiintu waxay wada galeen ma jirin oo haddii jirto xukuumadda kulmiye ay tiraahdo siyaasiyiinta kulmiye maxamuud xaashi iyo muuse wax ma wada gelin arrinkaas waa ruuweye laakiin anagu beelaanu wada galay way u habboonay inay wax wada galaan oo dhinacaas galaan laakiin may wada gelin anagu beelana waxaan leenahay si wanaagsan oo gobolnimaanu wada galay ilaa haddana waxay nagaga baxday ma jirto oo haddaanu burco ku soo gabagabaynay waxaanu isla nimi balaas hotel heshiiskii baanay waanu ku dhamaynay gentleman agreement wuu ahaa mid miidiyaha laga sii daayayna wuu ahaa oo dicid weyn ogey marka waxba nagagamay bixin laakiin Soomaalidu waxay tahay bis nin xoog la bixiyay annaga iyo beeshiiba xukuumad baanu dhisnay madaxweynaanu doornay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay anigu aaminsan iyaga laftoodii baa lagaga baxay iyaga laftoodii baan tala badan ku lahayn jaartoodii baa cabanaysa badarkaysa rag ugu hadda badan bixiyay maxamed Saciid ragii oo dhan baa meesha ka muuqan salaadintii subeer awal baan ka muuqan anagu sharaf maamuus baan qabnaa manay oran xaasha mar qura may oran balantii waanu ka baxnay laakiin waxay tahay bis nin xoog la bixiyay heshiiska aanu wada galay sidii hore waxay soo wareejiyay buu ahaa
waxay la noqon weyday uun qoladan xisbiga iyo xukuumadda haysa ayay la noqon weyday run ahaantii intaasi waa taa weeye laakiin anigu waxaan qabaa kacdoonka habar jecel inuu ka duwan yahay halkaa oo halka sartu ka qurantay aanu halka ahayn waxa weeyaan markaan u soo noqdo halka sartu ka qurantay waxa weeyaan doorashadii hadda taariikhda dib ugu noqdo dadku taariikhda ma eegaan anugu udub baan ahaa dowladdii dhacday ee udub baan ahaa xisbi mucaarad nagu ahaano xiltan badan naga dhexay nagala qabsaday xisbiga inay dibadda keenaan ayaanu aad iyo aad uga baqaynay inayna dhaliyaan baan ka baqaynay anu waxaan qoran karaa raggii hormuudka ka ahaa ee siilaayo iyo dowladdiisii maalintii doorashadu dhacday dayn fara badan baa uu ka tagtay daynta ay ka tagtay waxay ahayd 360 milyan beenaale markhaatigiisu fogeeyaa baa layidhi dowladdii siilaayo markay daynta xaddigeedii la yaabtay waxay guddida baarlamanka waxa ka yili 2 nin wuxuu ahaa cali maxamed xasan cali mareexaan iyo haddii aan leeyahay maxamed duur oo markaa isla xildhibaan ahaa guddida dhaqaalaha wasaaradda maaliyaddana waxaa looga yeedhay cali qorseef allah u naxariisto iyo nin khadar la yidhaahdo oo aan nolol ku ogahay iyo 2 inan oo howlwadeennadii xisaabaadka iyo xaggaa laga keeno oo iyagana aan nolol ku ogaa raggii nool yahay majoritigiisii markii dayntii la soo bandhigay waxaa isla gartay maadaama si gobonnimo la sameeyo oo si gobonnimo wax loogala wareegay dimuqraadiyadii meesha ka dhacday in ceebtaa la asturo dowladduna xamisho iskana furdaamiso cidna la soo hadal qaadin beel lagu eedayn xisbina lagu eedayn taas si gobonnimo leh horta ku dhacday talo iyo qorshe fiican bay ahayd weli cid laguma eedayn lama kala saarin raggii deynta qabtay ee deynta qabay arrinku halkuu habar ka kacsan tahay ama arrinka kala fogeeyey waxa weeye silaayo markuu xilka wareegay xisbigiisii baa kala wareegay dowladdiisii baa kala wareegtay markiiba waxaa la bilaabay tuugtii meesha ka tagtay tuugtii dhacday iyo daytuna 8 milyan qura ay ahay waxaan qabaa inay markiiba hal la beeleeyo ama حتى الله حسبيين حتى الله دولتين حتى رجع وقتهم تويناي الدكدة أن عيدنا كحسابين هنا كيسا يكون عيسي إلا كانوا أردت كلا كان حسابات أو يضع هدي اللي بليه اللي يضع هي مسلمات اللي هورت على حسابي هدي اللي بليه هاي مالية دي أما الصوماليات مسمسمات أما كي يكون عشريات أما رجع كده يدخلان بدنا عن عيد كحسابين اللي على حور رجع كانت روح كوربشن marka reer sigaar loo fasirayay waxa sigaar fogasayay loo ceebeeyay ilaa hadda la soo sabraya dowladdu dhaliilaysa amood xaash cali mareexaan baashe silaayo marwadi daxweynaha marka horta waxa weeyaan family baa la eriyanayaa baad leedahay qoys baa la eriyanayaa baad leedahay ay raali ka tahay wasiiradu xirsi xaaja horeba iskaga tagay waxa weeyaan dowladdu waxaan u arkaa inay beershii garabka u ahayd xisbiga tuuga marka dhexdeedii la ceebeeyo ee lala dagaalamo aan mar qura madaxweynuhu apology ka bixin wasiirku canaano daliilaya cid ku dhaliilin horta waxaan qabaa meesha kacdoon yimi aanay filayn haddii xataa ceebi jirto sidii udub loo asturay waxaan oran karaa corruptionka lagu sheegayo war dowladda waxa weeye wixii la iibiyey waxay ahayd waa Indian line ama deramol ka soo qaad haddii aan leeyahay dahabshiil ka soo qaad kuwa habar jeclo ugu horay qamdaan ka soo qaad inaa siciid dhulkiisa ka soo qaad ninka la yiraahdo Omar ka soo qaad Indian line oo dhan ka soo qaad guryahan qurux badan la dhisay waa waqti udub baa la iibiyey waqtigii udub baa la iibiyey waqtigii udub la iibiyey ودقالة ولي بالسيو اللي جاي يبيني لكن وهو الدولة كل مي سيلا يقولوا لي سوق قاعدين يبيسمي جبتوا وحلا ليه هاي وحي هوريدو بيبيسي وحي تنبيه الله يسوق ترى ان الله يسوق ترى ان هدي اللي بليه هاي الله يسوق ترى ان وحي الله يسوق ترى ان وحلا يسوق ترى ان qoladii habarta عليه كل مية تقدروا توقتي لقو
haddii laga hadhi waayo haye waxaan dhuunta noo dhaafiya dhaarshil waa jiree berbera way bixisay iyadaan iibinba dad bay siisay dowladdii kulmiye waxa weeyaan arrinkaas bay jireen laakiin horta arrinku halku ka qurmay waxa weeyaan waa eed kala fogeyn qodobka kale aan doonaya inaan tarkiisiyo ee aan ka hadlaa waxa weeye hadday hadalladaasi soo baxeen hadday cabasho soo baxday hadday soo baxeen dad shaqaalaha laga eriya hadday jirto saraakiil booskii laga qaado hadday jirto tijaara cabanaysa cidii daweyn lahayd waxay horta wasiirada halkaa boqoran ka dhex galay halkaa wasiirada waynu ku soo noqonaynaaye waxaad ka soo hadashay marxalad dheer waqtigeeda leh dad badan waxay isweydiinayaan halkan aad tidhi reer quraa la eryanaya oo rag aad magacawday oo dowladdaas silaaye aad soo magacawday haddii xilligiinii xiniyihiinii cid kale u dhiibteen oo markaasi cid kale ku shaqaysanaysay ama cid kale ay meesha ku jirtay oo wax khaladii ay dhaceen ma muusa maanta iyo xukuumaddiisa eed ku leh mise raggaa markaa jooga inay wax iska hagaajiyaan oo ay ceebta reerkooda iyo qarankaba ka ilaaliyaan bay ahayd horta in ceeb dhacdayba ma aaminsani in khalad dhacayna ma aaminsanin dowladdii daahir riyaale haddii ay deyn gashay iyo hadday dhul iibisayba qaranka yabyabka ee aan dhaqaalaha lahayn ee waxba soo galanaynin ayaa isaga laysu iibiyey oo laysku dhisayey qoladanina waxa weeyaan waxaas maaragtay wax wadda lagu dhisayey wixii boromognoloday wixii nidaamnimaday wax korshaniba inaanay dhicin baan anugu aaminsanahay nidaamka dawliga ah dowladda muuse maanta inay mutadayintoo degelayso oo inay deynta iska barxado oo inay wax samayso oo inay fadlan timaado oo inay waxiiso in badan lagu eeday la qaba anu waxaan qabaa eed meesha taalaaba ma jirtay waxa weeyaan waa la cusbaday waa la farxumeeyay sidaasaan uga jeedaa waa tahay marka halkaa taa kaga haro waa tahay boqor madaxweynaha beesha iyo maxay ahayd qarankuba waa u siman yihiin idina aad baa ugu dhaweydeen oo de marka la eego dadkii codka siiyey baa ahaydeen laakiin marka uu mansabka yimaado waa madaxweyne qaran oo ummadda u dhexa oo kii codka siiyey kii aan codka siin kii hantida ku bixiyey kii aan ku bixin kii maxay ahayd ka soo horjeediyey kii la socday intaba uu sinaado waa qodob dastuuri oo dhaara buu galay ma wax dheeraad ah laga rabaa marka madaxweynaha oo reerka u gaar ah waxaan qabaa arrinkan inta sii kicisay ma aha kursiga siyaasiga aniga maxamed cid baanu isu xigtaa maxamed anigu wax laga yaababa inaan maxamed kaahin taageersanaan wax noqdo leanno jecladu waxay leedahay dhaqan layaada cukaasha kaaga horreeyey maxamed kaahin waa guddoomiye ku-xigeen anugu waxaan qabay musabixii waxaan lahaa maxamuud xaashi ku wareejimaan lahayne maxamed kaahin dhiibbaan lahaa maxamed kaahin maxamuud xaashina waxaan lahaa war maxamed baa maanta taagan darka taagane daabaan lahaa anugu ma aqaano munaafaqada maxamed iyo maxamuudna ninkaa xigsanayay ahayn ama daaweynaan ha ahaato ama maanta meesha joogo waxaan lahaa sidaynu ku wada ballanay xisbiga ka hadli jiray maxamed kaahin in lagu wareejiyo ayaan qabay laakiin markay aragtay inaan maxamedna wax loo soo wadin cidna wax loo soo wadin xisbigiina lala kala tashaday arkiina waxa weeyaan run ahaantii ma dhaliilayo anigu nin dhaliilaya mihii wasiirada reerka ku jira waayo maxamed kaahin wasiir baa loo qaatay wasiiru daakhili baa loo qaatay waa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga maxamed kaahin waa ina kaahin ilxig waa qoys soo talinayay buu ka soo jeedaa waa nin soo halgamay waa nin reerkiisa qadarin ku leh anu wax qabaa inaanu beeshiisa maxamed kaahin qaban kari waayin oo soo maxaafadayn kari waayin laakiinse maxamed kaahin dhibaatada haysata xasan gaafadhi aanu madaxweyne wadnay oo ina maxamed cali oo ina gaafadhi oo ninkaanu madaxweynaha wadnaya waxa weeyaan meeshay diinta ka leeyihiin waa daa'uus booble waxay boogta ka leeyihiinna waa xagga madaxweynaha ayaan xagga madaxweynaha ayaan marka boogta madaxweynaha ay ka leeyihiin maxaa madaxweynaha halka haddaad saafto maxay tahay boogta madaxweynaha ay ka leeyihiin madaxweynaha way la joogaano waa shaqaalihiisii way la joogaane maya problemka taagan hadda waxa weeyaan shacabka kicinaya waxa weeye ganacsatadii ayaa cabanaysa falay dumay baa cabanaysa tijaartii dalka oo dhan baa cabanaysa maaha habar jeclo inaan ka hadlayo tijaartii dalka oo dhan baa cabanaysa kuwii telecommunication ka cabanaya waxa cabanaya kuwii ganacsatadii iyo xawaaladii baa cabanaya kuwii shidalka cabanaya anugu qabaa waxay u badan yihiin ganacsatada u badan ee cabanaysa waa kuwii beesha ama kuwii diyaaradaha wakiilka u ahaa maxamed kaahin intaas oo jeer buu madaxweynaha uga tegey falay dubay iyo alcarabiya inuu birmishu soo qabto
maraakiibtii badda taagneed ee shidaalkii la farageliyey inuu wax ka qabto maxamed kaahin iyo xasan gaafadhi waxay awoodi kari waayeen beeshu ma diidin kalsooni buuxday ka haystaan ixtiraam badan bay ku leeyihiin maadaama aanay xalili karaynin wasiiradii qiimaha madaxweynihii iyo beeshii dhibaatadii dhex taallay anuu waxaan qabaa dhaawaca uu geystay madaxweynuhu wasiiradiisa oo raggii beesha ugu qiimaha badnaa raggii aabayaashooda ugu qiimaha badnaa waxa weeyaan isaga ayaa garbihiisa wax yeelay baan qabaa waxaad ka soo qaadaa oo kale maaha kuwan qura maxamed muuse diiriye waa wasiirkiisii sodogii oo u beri kara war dhulka kan sodogii waxa ka soo baxay lagu dhex qaawiyo bilis lagu hor garaacay oo gabdhihiisii la garaacay taajirkiisa maxamed aw siciid waa lagu hor qaawiyey oo waxa weeye lagu hor dhibaateeyey marka haddaad wasiiradaada aad ka soo digto waxaan waxba soo goyn karin oo wax qaban karin qiimo ay kasta leeyihiin waxa weeye iyaga qiimo dhacayaan waxaan leeyahay maantana talon baan waa tahay maxaa markaa madaxweynaha maxay madaxweynaha beeshu maxay madaxweynaha ugu iman laadahay salaadiin bay leedahay aqoon bay leedahay siyaasiyiin bay leedahay inta dhalinyarada yaryar meelaha la iskaga diraye dhalinyaradu ay isu jawaabaysaa cabatinka beesha cabatin laguma aqoone beeshu ama may gees u baxdo oo tirada mucaarid baanu nahayo buuraha fuusho ama muxaafidadii lagu yaqaaniyo dawladii la shaqeynaysa labada ilaa waxba kama dhaxay cabatin meesha ma yaaleen maxaa la cabanaysaan totally arrinkaasi waa arrin khaldan weeyaan inamada yaryar iyo gabdhaha yaryar la ururinayo ragga kan hadda maanta kulmiye mucaaradka dhisa ka ahi ay ururinayaan ay telefishinada ka hadlinayaan ee hodheelada geenayaan ee laleeyahay sidan wax u dhiila xataa inamay caruur aan qaabkay wax u dhaliilayaan ee qaabkay wax u hadlayaan arrinkaas waa arrin khaldan weeye kuwa kale radilliga leeyahay sameeya jaaska ciyaaraya ee la keenaya haddii aan laba leeyahay qaabkan kuwan u soo darskariyeen wasiirada maxaafidka iyo raggoodan u soo darskariyeen waa qaab khaldan weeye dhaqan habar jeclo lahaydna maaha totally waa ka soo horjeedaa anigu waxaan leeyahay habar jeclo cabatina laguma oqon hadal xumaad noocaasina laguma oqon mucaaradad ay khidadeeda taqaanay lahaan habar jeclo ilaa hadda mucaaradadu may badheerin xisbigaas lagu wada hadlay xisbigana maanta mar haddii guri hoggaankiisii la doortay musharaxiintiisina la doortay weli lama dooran weli boqor lama dooran ma ogin meel lagu doortay haye boqor weli ma ogin meel lagu doortay adeer way dooran tahay dhigayso way dooran tahay dhigayso haye waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay saacadda laga bilaabo halkaasaanu ku hambalyeynayna waxay madaxweynaha iyo raggiisu inay isu joojiyaan cid ku haysatay taan dambe in la dhiso ma jirin cid ku haysatay ragga in la qanciyo oo la isu soo jeediyo ma jirin maxamed kaahin hadduu guddoomiyaha iskaga sii wareejiyey maxamed nin qabsanaya maahan nin haddii aan laba leeyahay saaxiibkiisa oo la yaqaano dhaqankiisa la yaqaano maxamed kaahin nin ballan ka baxan aanu hayn oo muuse uu ku dhisi lahaa teeramka dambe ahayd habar jeclo ninkii ka baxa ee maxamed ka daba qayliya dhegtaanu ku dhufan lahayn oo madax dhaqameedka ka toos lahayn war nin baa jaanis u daayay waxweyn wixii ka dhiman madaxweynaha iyo raggiisii cidda talada siinaysa iyaga iska khalday maantana habar jeclo waxaan leeyahay baaq baan u soo jeedinayaa madaxweynahana talaa siinaya waxaan leeyahay madaxweynaha iyo raggiisa hanii'an mariyaan baan leenahay allah idiin shifeeyo xisbigana sidiina ku dhista habar jeclo waydiin habaarigaysaa waydiin habalyeynaysaa mucaaradadna idinku kalifi mayno beriga mucaaradka annagu aan udub tahay sidaa odhan jirtay ka soo baxa xisbiyadana annagu cidna ka soo saari mayno dowladana cidna ka saari mayno anu raggii udub ahaa baan ahaa raggii lagula dagaalami jiray maxamed kaahin iyo maxamuud xaashigaas iyo raggii ay la dagaalami jireen odhan jireen ninkii dowladda ku dhow aniga saleebaan maxamuud aadan raggii la socday cabdullaahi maxamed ducaale iyo waana lala dagaalamayay waxaana la odhan jiray qofkii udubu shaqo tagaa waa qof gaaloobay anagu mana odhanayna waa gaaloobay laakiin taladii habar jeclo xisbiga ee shurakada ahayd maadaama beeshii habar awal aanan dhaliilayno iyadiiba aan tale la weydiin waxna aan inagaga bixin maanta waxaan leenahay anigu maanta labadii qoloba odayaal baan u nahay ha la joojiyo mucaaradatan hodheelada gashay ee gabdhaheennii aan weliga gabadh habar jeclo oo telefishinda soo fadhiista la arag iyo carruurteennii la keenayo dadaas siday wax u hadlayaan silayaan la arkayn wadaha la joojiyo waa tahay boqor jeclayn madax dhaqameed anina la kulano saddexdaas sannadood isagaa diiday inuu cid la kulmo isagaa diiday inuu la fadhiisto hadeerna waxaanu samaynaynaa inta madaxweynaha u hadhay qayla la'aan iyo rabsho la'aan iyo xisbigaaga aad maamulato iyo haddii aan laba leeyahay dimuqraadiyad ama ka dhig ama mid qabiil ka dhig ama saa doonto u dhig maamulo annagu ka beel ah waxa weeye taladan baanu isugu noqonaynaa
talada waan isku gaaraynaa mucaaradadana hal jiyaan leh madaxweynaha hal tal quraan siinaya xisbiga adaama gudoomiye ka intaad maanta u sharaxday iyo shirkaaga wana hambalyeynayna soo socda saad u dhisto mucaaradina ma jirto cidda ka soo qeybgalaysana durbaanka si fiican u garaacdo waan taageeraynaa xisbiyadu way badan yihiin negotiation baa siyaasadda baanu gelaynaa wada hadallaan ku soconnaa sawirkan aniga Faysal Cali walaabana wada hadalladun buu kamid ahaa wax dhiil oo aanu galay xisbi uu iibinayay iyo laba leeyahay ma jirto halka taabatay Faysal dad badan baa asaska muujidad badan baa ka hadlay bariyahana waxa la waday in xisbiga uu cidiyo xubnaha xagga kulmiye ka imanaya ay Faysal u diga roganayaan oo dhiil socdo oo Faysal oo madaxweyne la saaro iyo gudoomiyaha beeshaad u qaadato arintaas ma jirtaad leedahay أنا وحلا حسبيات واسكو لندن إلا هذا مركانو بنت ضد كشيء السياسة دميه إلا هذا قرية هرانو فديه كل منا قرية عصية دون نقول نقضي كوا كلنا ولي وادول نوعد مرادية دي كم مقطع أنا نبيش هلو دريدي نوع مقطع كنا وحوي قرية عسكر نقول نقضي كوا لنا وحوي ولي الآن كنا ولي gudoomiye inuu isku haysto bay doonaya cid la hadii la waliyahay war cid baan wax ugu yeeriyaa ma hayno anaga taayadana saaxiibtiin way ahayd laga yaabe inuu baaqba aanu ka maqnayn iyo fikrada isweydiisid way dhici kartaa beenan uu kama sheego hadalka laakiin guricaaska aanu joognay iyo kuwa kale guricaaso wali taladoodu ay isku mid yihiin hadda aanay muxaarad bay isku ahayn oo isku wada dhow yihiin wixiiba markaanu meelaanu reer u dareerinayana ma jirto aan leeyahay xisbigaas u dareerina ugu dambeyntii waxaan leeyahay war xisbiga maalin baynu dhiibnay dawladnimadana maalin baynu dhiibnay maadaama hadalkii oo halkaa ma ayaa waxa leeyahay Muuse xisbigiisa dawladdiisna waqtigeeda aanu dooyin waa tahay boqor jeclana miisaankeedii habayn dambe ayay u noqon doontaa tala dambe ku noqon doontaa wada tashi bay noqon doontaa absolutely waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada tan qoynaha wax dambeeyaan laga sheegin xisbigiisana wax dambeeyaan laga sheegin aan deyno waa tahay talada halka ay la martay aan u deyno ugu dambeyntii boqor waxaan u leeyahay iyo wanaag baan oo dhaxaya subeerawal waa tahay boqor ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay boqorada reer Somaliland gaar ahaan gobolada bari meelo kamid ah dagaalo iyo shidooyin iyo colaado iyo ba ka aloosnaa bariyaha beeye macaan meesha la yiraahdo ayaa ugu dambeysay oo degaankaagiya maxaad kaga maqan tahay ragga arrimaha ka shaqeeyad kamid ahayd maxaad kaga maqan tahay maxaad se ka ogto ku dambeeyay arrinkaasi kulay nabad lagama gaadhin waana la soo fadhiyay gabagabadii aniga maanta waxa weeyaan horta mucaaradad xisbi iyo mucaaradad dawladeed anigu waxaan leeyahay halka aan ku joojino madaxweyne Muuse Biixina waxaan leeyahay talada quraan siinaya waxa weeye si walaaltinimo leh oo saaxiibtinimadayada hore leh aanu siinaya waxa weeye aan runtii digniinina ku jirto waxa weeye waynu isnaqaanaa wareerka ii door la yiraahdo waa kabadhuna waa ganacsi anigoo aanu hadlaynin beesha habar jeclo anigu waxaan leeyahay war ganacsiga faraha ka qaad oo dantaada kale iyo hawshaada kala ka badan ganacsatadu amaana ka hesho oo diyaaradaha kan la leeyahay hadii aan la leeyahay hadda waad u kala qaadaysaa oo shirkadaha loo kala qaadaya la leeyahay war inamada yaryar ee diyaaradaha haystana faraha ka qaad war ganacsatadaas ama xawaalad ha ahaato ama batrool ha ahaatee ama haddii la leeyahay ninkay doonta ahaatee dhowr iyo toban shirkadood baa shidaalka keena war shirkadaha ammaan ha ka heleen haddii kale waxa dhici doonta wari door waa kabadhe war dagaalkaynu galay wuxuu ahaa markii berbera la xidhay ee la yidhi Kismaayo xooluhu ka dhoofeen maxamed siyaad barre gabdho la kufsaday iyo rag la xidhay iyo wadaadad la laayay isaaq diin kama dagaalamin wuxuu ka dagaalamay ganacsi la farageliyo anu waxaan leeyahay si nasteexa leh oo tolnimo leh dalku ilaahay baa intaad fadhiyayso ilaahay baana ku qoray inaad timaado anu waxaan ku leeyahay war dalka cimrigiisa hadda dejinin ee ganacsatadu ammaan ha ka hesho noocay tahayba ganacsiga faraha ka qaad inuu baa la sii wada joogi
haddii kale mas-uuliyaddeeda adiga iyo inta kugu dhow unbaa qaadi doonta haddii ganacsatada dhibta laga dayn waayo aad iyo aad baad u mahadsantihin waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqor cismaan oo maxamuud maxamed waraysiga dhinacyada badan le aadna siisay adigoo ku sugan dalka Dubai Sahan TV-na aad buu kaaga mahadnaqaya iyadoo maalin Jimcaha tahay in maxay waraysiga aan kula yeelano adigoo waliba dal shishe jooga aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqor mahadsanid